السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيلك لغا قاداي taliyihii hore ee qaybta lixdanaad ee Xasan Baydhabo. Maxay tahay sababta xilka looga qaaday? Maxay tahay ujeedada loogu dan leeyahay in xilligan Xasan Baydhabo xilka laga qaado? Barnaamijkaas rabaa inaan faahfaahiyo fadlan muuqaalka fogeeya share gareeya wixii fikirkiina aan xaq hoose ku soo qora. Sidaan wada ognahayba Xasan Baydhabo waxa laga urinayaa lafta gareen maadaama uu saaxiib leeyahay oo hadda ka horna waagii mudaharaadka gobolka Bakool oo Itoobiyaanka lagu taageerayayna uu lahaa Cabdicasiis waa walaalkay siyaasadda ka horna walaalaan ahayn saaxiiban waan haddan walaalaan marka waagaasi meel loo soo maro ma lahayn sababtoo ah dawladda federaalka iyo waxa isku xumaa iyo lafta gareen marka dawladda federaalka markaasi awood uma lahayn in nina Cabdicasiis raali ka ahayn inay koonfur galbeed u soo diraan marka hadda maqli jirtay haddii laga tashado laguma tashto qorshaha marka hadda ninkan oo horta ninka hadda la soo magacaabay aan idin sheego waa nin digila waa nin dabara ah waa nin reer diinsoora waa nin reer koonfur galbeed ah xasaasiyad kama qabno in oo macnaha oo xilligan uu qaybta lixdanaad la keeno sababtoo ah deegaankiisa waa dadkiisa ciidanka xooga dalkuna ka tirsan yahay laakiin ujeedada xilligan ku soo beegtay baan rabaa inaan faahfaahiyo horta qorshaha la rabo in oo Xasan Sheekh Maxamuud damacsan yahay waxa weeyaan in lafta gareen laga taqluso sababtuna waa idin cadeynaya sababtoo ah Xasan Sheekh Maxamuud ma rabo lafta gareen inuu koonfur galbeed sii joogo bataatanba qorshihiisa koowaad haddii doorasho qof iyo cod la qabanayo iyo haddii kalaba waxa weeyaan lafta gareen inuu isdhaafiyo rabo Xasan Sheekh Maxamuud haddaba marxaladan maxaa keenay in oo ninkan loo soo magacaabo qaybta lixdanaad weligeed badanaa waxa loo soo magacaabi jiray nin marifla ah nin digila uu ku yaraa anigu deynta siyaasadii horta aan la soo qabsaday waxaan u maleynay ninkan ay ugu horeeyay aan arko nin digila oo loo soo magacaabay qaybta lixdanaad oo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee magaalada Baydhabo xaruntooda ay tahay marka qorshuhu waxa weeyaan horta waxa waaye Xasan Baydhabo marka la bedelayay waa la ogyahay qofka sarkaalka marka la bedelayo deegaankiisa ama statekiisa waa laga tashtaa wax qabad la'aantiisa la eega waxyaabo badan ba meesha la keenayo waqtina way qaadatay in la bedelo oo in badan way dhacdaa laakiin Xasan Baydhabo dagaal baa dhacay warqad baa loo soo tuuray iyadoo madaxweynihii taama joogo wadanku uu ka maqan yahay lafta gareen waa laga adeegtay isagoo maqan baa laga adeegtay wax tashiya lagama siin wax kale lagama siin marka lafta gareen waa laga tashaday qofkan hadii laga tashado lama tashto mijxaabintiisa marka hadda bilaabmantay qaybta lixdanaad ba laga bilaabay ninka meesha la keenstay waa nin digila waa nin maxaa ku raada dawladda federaalka meesha keensatay bari haday lafta gareen wax ka fahmi weydo isweedaar ku qaban karo oo dhigi karo soo qabta laakiin Xasan Baydhabo nin dil ma ahayn nin dhigi karo lafta gareen soo qabo ma kama suurtoobin saas boorta meesha loo keenay dadka qaar waxay leeyihiin Xasan Baydhabo wuxuu ku fashilmay dagaalkii ayaanta dhaweed ee Daynuuna iyo Burjeed miyuu ahaa ka dhacay buu ku fashilmay maxaa marka Xasan Baydhabo laga rabaa hadiiba taliyihii ciidanka xooga Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage iyo taliyaha maxkamadda darajada hoose Xasan Cali Nuur Shuute ay maalin cad ka soo carareen meesha la dhaw aadan yabaal oo gaadiid laga qabsaday oo gaadiid laga gubay ay soo carareen Xasan Baydhabo gaadiidna lagama gubin gaadiidna lagama qabsan ma garatay uu dagaalamay dagaal meel ka dhacan weligeed buu rag uu dhiman jiray waxa ka dhintay isna wax uu dilay laakiin in marmarsi looga soo dhigto dagaalku ku fashilantay maxaa looga qaadi waayay waa Yuusuf Raage xilka ma laga qaado maxaa looga qaadi waayay Shuute uu soo cararay marka ma kan oo reer koonfur galbeed ah hadii oo uu dagaalka xitaa meel laga ma qabsanba isaga Xasan Baydhabo meel laga ma qabsan laakiin Yuusuf Raage adoo Yuusuf Raage meel ba laga qabsaday uu ka soo cararay laakiin ninka ma soo cararay uu dagaalamay nimankiina uu iska dhiciyay laakiin maxaa xaq looga dhigay in oo warqad loo soo tuuro la yiraahdo iskaga bax meesha marka raxweynta waxay tiraahdaa anoo boorin jeedo saar dibjay dhooshi marka hore ninkan meel loo soo maraa la laa qorshahan wuxuu ahaa qorshe la rabay in marka hore lagu raadinayay Jaaniskan uu helay Xasan Sheekh Maxamuud haddaba talada aan u jeedinayo waxa weeyaan lafta gareen
niyo wadanka kaale xilli kala guur baa lagu jiraa ma garad xisbigan saa u gashayba madaxweyne ma tiid waxaad noqotay barasaabka gobolka Baybal noqotay awood bad lahayd nin lala tashadaad ahayd nin muxtarima baad ahayd nin qadarin loo waxna diidi kara waxna yeeli kara baad ahayd laakiin maanta cidna wax ka weydiin mayso koonfur galbeed taliskii waxaan ku yiraahdaa qaybta 6aad ba lagu diiday in laga tashado oo meel cidla la iska warqadii laga qaaday mid aadan tashi iyo talo midna aadan ku lahayn baa la keenay haye nin baa tiri wasiir xilka laga qaado waa la diiday haye nin baa tiri hitaa qayb oo maxaan ku yiraahdaa qaybta 6aad kamid ah guutada 9aad miya nin hal ay kana tiri waa lagu meermeeriyay warqadii hebel baa warqadii la maqan iyo hebelka wasiir jaamac iyo waa lagu la meereystay waxaan doonaa 10 ka baratid weeyaan waxaan dhan wayna 10 ka barataa aad tiraahdaa warniyo maxaa la u dan leeyahay waxa loo dan leeyahay marka kulli dadka qaar waxay dhihi doonaan ninkan uu iska hadlaya laakiin anu siyaasadda aqaana siyaasadda oo ninkan hadda Xasan Baydhabo lagu bedelay ninkan loogu soo bedelay waxa weeyaan waxa bilaamatay barnaamijkii lafta gareen koonfur galbeed lagu dhaafin lahaa isaga ama xisbi ha galo ama wax kale ha galo isagoo xilka laga qaado xisbigu kamid ahaan kara soo xisbigu wax weyn baa u taqaan adoon madaxweynaha ba xisbigu kamid ahaan karta waxaan leeyahay marka niyow xisbiga intaad ka baxdid matalaad bay ka rabaan reer koonfur galbeed madaxweyne ka rabaan masiir hawiye fiiri in hawiye maanta masiirka raxweyn ka taliyo adaa geeyay runta la isku sheegay anu mucaarad ma ahay laakiin wixii runta deynaan been isku sheegna ma fiicna adaa meesha dhigay maanta raxweyn dadkan ilaahay baa Soomaalida iska jeclaysiin nimanka raxweyn mowduuc kale aan kaga hadlaya 26 Juun hadda waxa raxweyn aan dabaaldegaysa ma aragaan meel walba garow haday noqoto nin majeerteena dabaaldegaya ma arag ama gabar majeerteena cali xidho dabaaldegaysa Kismaayo cid ka dabaaldegaysa ma arag xamar gudaheeda cid ka dabaaldegaysa ma arag haddii cid dabaaldegaysan war raxweyn Baydhabo calankii bay sitaan wayaa calankiin idinka la waaran laakiin